faa'iidooyinka aan ka helno adkaysiga. Marka aad sii wado yoolkaaga adigoon ka harin waxaad baranaysaa waxyaabaha badan, xirfad cusub, kalsooni nafeed iyo qadarin. Xirfadda cusub, dadaalka joogtada ihi wuxuu kuu horseedaa inaad xirfad fiican ka hesho shaqadaada. Kalsooni nafeed, mar kasta oo aad guul yar gaadho kalsoonidaada ayaa kordhaysa. Qadarin, bulshadu waxay qadarisaa dadka aan si sahlan uga harin yoolkooda. Waxaad yeelanaysaa maskax aan si fudud u jabin marka ay dhibaato timaado. Haddii aadan garanayn waxa aad rabto, way fududaanaysaa inaad ka tagto wixii aad rabtay. Haddii yoolkaagu weyn yahay, u kala qaybi tillaabooyin yaryar oo fudud. Qor waxa aad gaartay toddobaad walba si aad u aragto horumar muuqda. Ka fogow kuwa ku niyad jabinaya. Mar kasta oo ay kugu adkaato, dib ugu noqo sababta ugu weyn. Maxay yihiin caqabadaha ugu weyn ee kaa hor istaagi kara? Waxaa jira dhowr caqabadood oo qofka ka hor istaagi kara inuu sii wato: cabsida, niyad jabka, iyo isbarbardhigga. Dad badan waxay ka baqaan in guuldaroodaan kadibna ay ceeboobaan. Dadka qaar badan waxay rabaan natiijo degdega. Natiijada degdegana waa midda keenaysa inaad niyad jabto. Isbarbardhig dadka kale. Markaad isbarbardhigto dadka guulaystay, waxay soo mareen niyad jab balse way diideen middaas. Laakiin haddii aad barato inaad guuldarrada u aragto cashar, aadna fahamto in guushu waqti qaadato, waxaad ka gudbi kartaa caqabadahaas. Muslim ahaan, waxaan aaminsanahay in dadaal kasta iyo samir kasta ay la socdaan ajar iyo khayr. Qur'aanka iyo sunnada ayaa inoo sheegay in Ilaahay la jiro kuwa samra oo aan yoolkooda lumin. Sidaa darteed, marka aad safarka ku jirto, xasuusnow in dadaalkaagu yahay mid qiimo leh, xitaa haddii dadku aysan isla markiiba arag. Haddii aad daasho, baro inaad nasato. Guushu waxay u baahan tahay in la socdo xitaa marka ay lugahaagu daalan yihiin. Khaladku ma ahan dhammaadka ee waa cashar cusub oo la barto. Awoodda ugu weyn ee qofku leeyahay waa inuu sii wado dadaalka xitaa marka ay wax walba ka soo horjeestaan. Qofka aan ka harin wuxuu ugu dambayn arki doonaa natiijooyin uu ku farxo. Waxay qaadan kartaa toddobaadyo, bilo ama sannado, laakiin qofka aan ka harin weligiis ma noqonayo qof guuldaraystay. Waa qof safarkiisa ku jira. Marka aad maanta ku fikirayso inaad gaarto yoolkaaga, xasuusnow waxaa laga yaabaa inaad ku dhowdahay guusha. Marka aad dareento inaad ka harayso, sii wad, adkayso oo ku kalsoonow in dadaalkaagu miro dhalin doono insha Allah.